لا يهين حدود udhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland siyaasi baa tahay in aqoonyahan oo wax badan kala socdo xaaladda siyaasadda labada dalna waa tahay aaminsantahay inay xuduudda Soomaaliland ma adiga ka khaldan tahay taasi xagee ku taala marka in lagu soo tusaado baahan tahay TV-gaaga iyo kamaradaha u dirto anaguna oo ku caawinayna inaad soo aragto Cabdiraxmaan Tuur oo ahaa madaxweynuhu ugu horeeyay ee Soomaaliland markuu xilka ka degay oo London uu degay kadib qadiyadda Soomaaliland oo kala hadlay intiina badan siyaasiyiinta hadda xilka u tartamayo xil doon baad tihiin mooyaane qadiyadda in ka dhab ma amastay kara laakiin dadku inta badan hogaamiyayaal militariga cabsi badan bay ka qabaan markaas muddo hadda bilooyin laga joogo golaha baarlamaanka Soomaaliland dhaxdeeda waxa ka dhacay gacan qaad adiga gudoomiye ku-xigeenkaaga dhaxmaray waxa la leeyahay xogaa ninkii raaha siyaasadda xaggeeda iyo marka loo fiiriyo gacan qaadkaas waa nin wax walba ka surtoodaan oo gacan fudud wixii halka ka dhacay waa laga heshiis laakiin baarlamaanada adduunka wada hadal baa adduunka ku jira isku suubad kuma jira amiin dhan oo mas'uul siyaasi ah hadana gudoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka sharci dejiyaasha fadhiin mas'uul oo gacan qaada idan aftarka soo gafma inay soo noqon baa jecelhayna Faysal Cali Waraabe inta badan baahinta markuu ka hadlayo xisbiyada mucaaradka iyo shakhsiyaadku ataaga ka mid tahay siba adigu ku soo hadal qaada maxaad isleedahay Faysal Cali Waraabe ku dhaliilaya Faysal waa saaxiibkay jacayl baan maranaya arintaas dhaliisho tahay Axmed Muumin sidoo kale oo gudoomiye ku-xigeenkaaga ahaa waqti fara badan aad isla soo halganteen maanta banaan buu taagay soo taama cadeynayso in xogaa aad nacgelisay oo ninkaas hadda uu banaan taagan yahay xisbigaada asqaysiis Axmed Daawud tartamay doorashadii waa laga helay laakiin doorashada socoto ka dhaxbaxay oo qiyaana ku jirto yiri asoo gacmaha taagay warbaahinta wada arkaysa tii ugu dambeysay mooyaane oo isaga khusaynaysay mooyee intii kale uu ka qayb galay